mahadcelinaya baxweynta Somali National TV waad ku mahadsantihiin su'aashaada markaan si toos uga jawaabo xisbi ahaan waxaan ku galayno election ma jirto xisbigu waxa weeye waa urur raadinaya ama ku jira waxaan ku raahdaa raadinta dadka tayada leh ee wanaagsan ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo sidee aan u abuur lahayn mabda midaysan oo aan uga qayb galno waxaan ku raahdaa shakhsi ahaan aan uga qayb galno election ka soo socda oo aad sheegtay ururkani waxaan abuurnay 2 bilood ka hor waxaan ka abuurnay ama asaaskiisu uu ka bilowday magaalada Minneapolis Minnesota waxaan u dooranay gudoomiye Maryan Qaasim oo ahaan jirtay wasiirka dumarka iyo arrimaha maxaan ku raahdaa social service-ka anuguna waxaan ka ahay xogayaha guud xisbiga ujeedadana waxa weeye runtii inuu ururkan asaas u noqdo ama base u noqdo dadka wanaagsan ee Soomaalinimadu ay ku dheer tahay leh waxaan ku raahdaa damiirka wanaagsan oo in dalkii Soomaaliya lagu soo celiyo nabadiisii iyo sharafkiisii iyo karaamadii lagu yaqaanay wuxuuna ururka base u ama saldhig u oo ku daraya cadaaladda iyo sinaanta bacdama muddadii 21 sano soo dhaafay wadanka laga waayay cadaalad iyo sinaan inaan anagu u noqono albaabkii cadaaladda laga galayay oo aan dadka tusno hadda waxa halaabay oo runtii laga nool gariyaan iraahdo ama aanan laga dhigan maxaan ku raahdaa saldhig cadaalad haddii cadaalad aysan jirin ummadda cadaalad deeqada haddii cadaalad jirin haddii waa adigoo yiri guri sara waxaan ka dul dhisayaa cariish baan ka dul dhisayaa guri sara marka gurigaas ma istaagi karo marka asaaska rasmiga haddii la rabo in la dhiso wax kasta waxa ugu horeeya cadaalad sinaantana waa loo baahan yahay taas waxay ka turjumaysaa ururkeena in gabar ay gudoomiye ka tahay macnaha inaan tusno ummadda Soomaaliyeed in beesha shanaad naftigooda oo aad moodo inaysan rajo ka lahayn inay boosas weyn qabtaan in ay qaban karaan haddii kartidooda ay u saamaxayso inay qabtaan laakiin aan marnaba banaanka looga saarin iyagoo la leeyahay 0.5 baatiin ama waa ka liidataan beelaha kale Soomaaliyeed runtii urur taya ahaan dad loo cazumay ama xisbi ahaan cid loo cazumay anigu garan maayo laakiin waxaan ku sheegayaa qaybtiisii hore shirkaasi conference-kaas ka dhacay Istanbul waxaa lagu cazumay civil society-ga meel kasta ay joogaan oo aad moodo si wanaagsan in loo soo agaasimay hadda communique ka soo baxayna communique aad u fiican oo runtii mabaadi'da annaga kulli aan qabna haddaan nahay tayo wax u dhow ama la mid inuu ka soo baxay dadka anaga ka xubnaha dad ka mid waa ka qayb galeen laakiin waxa looga cazumay bacdama ay yihiin dad mujtamaca iyo bulshada ku leh magac wanaagsan iyo sharaf darteed yaa loo cazumay oo waxa ka mid maxaan ku raahdaa Maryan Qaasim oo halkaas runtii ka jeedisay khudbad qaaya leh runtiina la hadashay dadka odayaasha oo meesha yimid iyo civil society-ga ama ururada bulshada guud ahaan tusaaleysanna waxa tayo tahay iyo waxa meesha tayo ka timid oo ahayd xukuumadii anigu aan madaxda ka ahaa iyo waxqabadkeeda runtii waa soo dhaweeyeen waxyaabo badan oo aan filaynay inay ka soo bixi doono
shirkaana wuxuu ahaa shir daba socday kii London lagu qabtay waxyaabo dhaxalgal ah oo wanaagsan yaa ka soo baxay ugu horeyso in la dhameystiro xilliga kumeelgaarka ah lana soo xulo baarlamaan wanaagsan kaasoo dooran doona gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne qodobada kale hadda waa qodobo runtii la filayay oo ay ka mid ahaayeen in maaragtay la xoojiyo dhismaha ciidanka maxaa yeelay haddii dal uusan lahayn ciidan law and order ama nidaamkii dowliga ahaa ma soo noqon karo marka aasaas dowlad kasta waxa u ah in la saxo ama la abuuro ciidan really ama xaqiiqdii tayo leh oo runtii nabadgelyada dalka xalan kara runtii waa guulo aan filaynay ciidanku guud ahaan Soomaaliyeed waa ciidan runtii wanaagsan runtiina adkaysi badan waxaad ku ogaanaysaa anagu markaan tageynay mushaharna maysan qaadaynin raashina lama siin jirin laakiin waxay ahaayeen ciidan u taagan inay runtii difaacaan iyagoo dhibkaas iyo maxaan ku rahdaa uu haystay mashaakilaadkaas inay difaacaan oo ay ka celiyaan ama qolada nabadidka horarka ah inay hor istaagaan marka hadda markaan nimid waxay u baahnaayeen oo ay u baahnaayeen ay ka mid tahay mushaharada iyo kii dhaawacma inaan daaweyno xitaa kuwa badan dibadaha u qaadnay kuwii dhinta carruurtoodii iyo qoysaskoodii aan u daryeelno raashin iyo waxay u baahan yihiin aan siino waxay muujisay markiiba runtii inay tallaabooyin cad ay qaadaan ayna qabsadaan meelihii ugu horreysay oo ahayd Boondheere ilaa maxaan ku raahdaa jidka Sodonka Sinai dhanka kalena ilaa wasaaradda gaashaandhigga iyo shirkala meeshii la oran jiray dhankaas warshada caanaha kulli iyo African Village iyo qayb ka mid ah maxaan ku raahdaa suuqii bakaaraha runtiina hadee August lixdeediina hadee waa la ogaa shabaab inay iska wadanka ka qaxeen magaaladii Muqdisho ay ka baxeen kadib markii adiga dawladda hadda joogta la dhaariyay state bari ka bacdi macnaha waxaad garanaysan macnaha haddii ciidanku wax u baahan yihiin la siiyo moral ahaan la dhiso shacabka la daba istaajiyo oo wax u baahan yihiin lagu kabo inay hawlahooda ka soo baxayaan oo ah inay dalkooda difaacaan iyo shacabkooda marka haddana waa wanaag waxay qabteen in lagu dhiirigeliyo yaa loo baahan yahay maxaan ku raahdaa hadda hawlihii ugu dambeeyay hawlgaladii ugu dambeeyay oo ka dhacay afgooy agaarkeeda waxaan hubaa haddii hawshaas sii socoto in guud ahaan laga xoreyn karo dalka dhan qolooyinkan horarka ah oo shabaab سؤال وناكسن runtii oo dhaqameedyada iyo salaadiinta iyo duubtaba kulli runtii waxa soo wajahaya shaqooyin aad iyo aad u culus oo waliba kii ugu darnaa oo ay ahayd in dalkan ka badbaadiyaan dhibaatadii 21 sano ku habsatay 10 sano ugu dambeysay oo xilligii ku meel gaarka lagu jirana loo gudbi waayay maxaan ku raahdaa xilli permanent ah ama dawlad permanent ah marka mas'uuliyadda saaran runtii waxay tahay mas'uuliyad culus oo ah in ay keenaan dad tayo leh
oo runtii beeshoodana mathali kara oo magac u keeni kara iyo sharaf iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed markaasi ay yimaadaan dadkaasi aan sheegayo tayada leh kadibna ay hadee sidii awal wax loo dooran jiray aan loo dooranay ay u fiiriyaan qofka dalka wax u qaban kara ama wax ku kordhin kara ama dhibaatada dalka ku jiro ka saari kara ilaahay ka sokow marka hadee waxay ka bilaabataa hawshan way ka bilaabanaysaa in oday dhaqameedyadu ay keenaan dadkooda ugu wanaagsan ma aha dadka ay maaragtay hayn kari waayeen inay ku soo maaragtay u diraan federaalka dadka ay leeyihiin waa dad wanaagsan oo runtii magac ku leh beeshooda مثلا كره runtii sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed inay soo diraan oo ay maxaan ku raahdaa kala balamaan ku adkeeyaan in maxaan ku raahdaa xildhibaanadaas ay keenaan dawladda runtii su'aashan aad iyo aad la ii weydiiyey hadda ka hor jawaabtuna waa isla sidii oo ah salaad walba waqtigeeda la tukadaa runtii talada dalka qof walba oo Soomaali oo muwaadin ah inuu ka qayb qaato waa ku boorreynaa ama uu soo istaago annaga taya ahaan ku gelimayno حزبي أهان لكن شخصيات نجمدة وحنلنا إن مرك حالة لا أن أساس كرينه يصير تايا نوجانه أنا كقريب جلد إنه أنتي حوشة إلكشن خاصة على دوي بير هذا وأن كل جوين هي أنا قريب كقاعدة إنه ثلاثة ضلك وهي كتم بي أول صدوي لهي